asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada barnaamijkeenii maxay kula tahay. noloshu waxa weeyaan markasta sad u aragtid. caqabadaha nolosha kusoo marta haddaad u aragtid inay wax weyn tahay oo aana dhammaanayn, waxay noqonaysaa sida buuraha oo ma dhammaanayso. haddaad caqabad kastoo nolosha kusoo martana aad u aragtid wax fudud oo markiiba dhammaanaya, wax fudud ayay kugu noqonaysaa. markasta waxa weeyaan ishad ku aragtid dhibaatada ama caqabadaha kusoo maraysa. xanuun kasta ama duruuf kastoo adagoo kusoo martana waa inaad ka dhex raadisid naxariis ama nimcad ilaahay ama wanaag inaad ka dhex raadisid. taas baa kugu fududaynaysa caqabadaha nolosha. oday 70 jira oo macaan qaba ayaa dhakhtar buu la xidhiiri jiray. dhakhtarkaasoo nin gaala buu ahaa. markasta wuxuu la yaabi jiray odaygan siduu u faraxsan yahay oo positive uu u yahay. waxaanu la yaabi jiray markasta odaygaasu afkiisa kamuu qaadi jirin kelmadda alxamdulilah, isagoo haddana sonkortiisu maalin dhacayso maalin ay kacayso oo inta irbada isku mudaaya oo dhakhtarka markasta la xidhiidha oo xaaladiisu ayaanay wacnayn odaygaas. maalin ayaa dhakhtarkiiba wuxuu su-aalay su-aal, wuxuu ku idhi markasta maasha allah waad faraxsantay adeer, waa maxay sababteed markasta aad u faraxsantay adigoo weliba macaan qabo inta irbada isku mudaaya. odaygiiba wuxuu ugu jawaabo, wuxuu ku idhi waxaan u faraxsanahay asbaab badan oo ay ka mid tahay ugu muhiimsantahay nimcadda weyn uu ilaahay uu isiiyey iyo nimcaddan wanaaggan fara badan aan ku arkay xanuunkaygan. wanaag fara badan ayaan kala kulmay, taas baa igu wacan markasta inaan faraxsanahay waan ku celceliyo kelmadda alxamdulilah. wuxuu ku yidhi oo sidaad wanaag uga aragtay xanuunkan ku haya iyo dhibaatadan ku haysata, farxaddan ama wanaaggan xalkuu ka imi. wuxuu ku idhi marka ugu horeysa xanuunkayga waxaa layidhaha macaan ama sonkor. xataa magaciisa wanaagsan oo qurux badan oo positive ku siinaya ama farxad ku gelinaya. ta labaad, macaanku wuxuu ugu wacnaa inuu sabab noqdo ina markasta dhakhtarka aan la xidhiidho oo markasta 3 biloodba dhakhtar aan u imaado oo shaybaadh guud layga qaado, xanuunkan jirkayga la baadho oo la eego in wax igu soo kordheen. taasuna way wanaagsantaho oo naftaydan markasta ka warhaya. ta saddexaad waxa weeyaan macaanku wuxuu u noqday sabab inaan suuliga aad u galo habeenkii dhowr jeer aan kaajo. taasuna waxay ugu wacantahay markaan suuliga galaba inaan weysaysto oo qiyaamileyl aan tukado. anigaanu tukan jirin marka hore qiyaamileyl, halkaana ajar fara badan ayaa iga soo kordhay. sababta kale waxa weeyaan macaanku waxa weeyaan xanuun aana damqasho lahayn. meel jirhka ay damqanaysaa ma jirto. dadka kale cudurada kala qabana waxaad arkaysaa iyakoo damqanaya oo intaa kaarjabin liqaaya oo xanuun habeen iyo maalin ka cabanaya. xanuunkayganu sabab buu noqdo in miisaan fara badan iga dhacdo, khaasatan calool weyn baan lahay, calooshana way iga dhacday. taas baa sabab ugu noqotay inaan khafiif aan noqdo oo salaankana aan kori karo anigoo aan xiiqaynin oo intaa aan soconayo. xanuunkan macaanka waxa weeyaan xanuun dawo leh. xanuuno fara badan ayaa dawo aanan lahayn oo cilmiga ilaa imanka uu dawo u waayay. marka anigu alxamdulilah xanuunkaygu dawuu leeyo, dawadeydana waan qaataa. waxaan kale aan ku faraxsanay aan intaa u leeyahay alxamdulilah. xanuunkan macaanka ee haya sabab buu noqday in inta ajar aan shaqaysto. markastoon irbadda aan isku mudo subaxda iyo habeenkaban irbadda aan isku mudo, sabab bay u tahay ina dembigayga la dhaafo. taasoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay uu yidhi qofka muslimka qodaxda xataa muddo isagoo waddada socda, sabab bay u tahay ina dembigiisa laga dhaafo. waxaasoo nicmada baan haystaa, sidee baanan u faraxsanayn ama sidee baanan u odhanayn alxamdulilah. ilaahay baan uga mahadnaqayaa xanuunkan oo ilaahay baan ku faraxsanahay nimcaddan weyn uu isiiyey. haddaba adigana ka waran, maxay kula tahay dhibaatooyinka nolosha kusoo marta ama hadduu xanuun yahay ama duruuf, sidee baad u aragtaa? nimcad iyo naxariis ma ka dhex baadha oo si positive ma u eegtaa dhibaatadaas, mise markasta negative baad u eegtaa oo xumaanta ama dhinaca madowun baad ka eegtaa? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.